dabaysha colaadda ayaa dhufanaysa adduunka halista dagaalka waa mid dhab ah waxa dhacaya ma aha wax lagu maadsado sida qaar ka mida majaajiladii siyaasadeed ee hore dunida haatan waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah gaar ahaan Mareykanka iyo Iiraan ma ogtahay waxay ka dhigan tahay in ka badan 300 oo diyaarado dagaal oo Mareykanku leeyahay oo F-35 iyo F-22 ah inay ku sugan yihiin hal gobol mise fahamsan tahay waxa ay tahay in Mareykanku laba markab oo kuwa diyaaradaha xambaara ah uu diro hal bad oo kaliya maxay yihiin sababaha Shiinuhu uu hubka culus iyo tiknoolajiyada ugu daabulayo Iiraan maxaa lagu gorfeynayaa qolalka qufulan maxaa ka socda daaha gadaashiisa Beijing Washington Tehran Tel Aviv iyo Moscow maxaa ka dhacaya tabinteennan ayaa ka jawaabaysa su'aalahaas iyo kuwa kale ee ku soo dhawaada Tafaftir Media dunidu waxay ku mashquulsan tahay nolosha maalinlaha ah taxanaha ramadaanka qiimaha alaabadaha badiicooyinka agabka korontada laakiin gudaha caasimadaha Washington Tehran Beijing iyo Moscow waxa quus laga gaaray fursad nabadeed oo jirtay si aan faham buuxa u helno waxaan u baahannahay inaan eegno sooyaalka dhow bishii Febraayo 2023 Mareykanka iyo Iiraan waxay fadhiyeen miis wada xaajood oo qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada Geneva ee Switzerland waxa korjoogteynayay wada xaajoodkaas suldanada Cumaan oo caan ku ah dhexdhexaadinta nabadeed ujeedadu waxay ahayd xal diblomaasiyadeed oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iiraan mashruuc muddo dheer ka soo jiray gobolka Iiraan waxay bixisay dalabyo macquul ah inay joojinayso howlaha barnaamijkeeda nukliyeerka muddo 3 ilaa 5 sano ah taas oo ku beegan dhamaadka muddaxileedka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump dalabkaas wuxuu Trump siin lahaa guul diblomaasiyadeed oo uu ka sheegi karo gudaha Mareykanka dhanka kale Iiraan waxay diyaar u ahayd in qayb ka mid ah uranium-ka ay u rarto dalka Ruushka fursad dhab ah ayaa jirtay laakiin Washington ayaa diiday sababtuna ma ahayn in dalabka Iiraan uu xun yahay laakiin waxay ahayd cadaadis ka imanaya Netanyahu oo ku riixayay Trump inuusan aqbalin xal kasta oo ku meel gaar ah Netanyahu wuxuu doonayay burbur dhameystiran oo dhan walba ah oo ay ku jiraan nidaamka gantaalada Iiraan inuu dhaco markii ay xaaladdu xumaatay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay kelimad adag oo joojisay wada xaajoodadii nabadeed taas oo furtay albaabka dagaalka 300 oo diyaarado dagaal ah iyo maraakiib diyaaradaha xambaara ayaa Mareykanka waxay kaga sugan yihiin biyaha gobolka Iiraan markii hore waxay muujisay tallaabo xasaasi ah ciidamadeeda waxay ku dhawaaqeen xiritaan ku meel gaar ah ee gacanka Hormuz si ay u sameeyaan tababarro toos ah tani waxay ahayd mid muhiim ah maxaa yeelay biyaha Hormuz waa halbowlaha shidaalka ee dunida 20% shidaalka caalamka ayaa ka gudba xiritaankiisu ma ahayn oo kaliya dhibaato dhinaca shidaalka ah ee sidoo kale waxa uu ahaa burbur dhaqaale oo caalami ah Trump ma uusan ka laban inuu tallaabo qaado 24 saac gudahood wuxuu gobolka u diray in ka badan 50 diyaarado dagaal tani waxay ka dhigtay in tirada diyaaradaha dagaal ay ka badan yihiin 300 haddii ay Israel sidoo kale ku biirto howlgalka tirada guud waxay dhaafi kartaa ilaa 500 oo diyaarado dagaal markii ugu dambeysay ee dagaal cirka ah ee noocan oo kale ah uu ka dhacay adduunka waxay ahayd dagaalkii labaad ee dunida Mareykanku wuxuu diray markabka USS Gerald Ford si uu ugu biiro USS Abraham Lincoln oo hore ugu sugnaa badda gobolka labada markab ee diyaaradaha xambaara ayaa haatan ku sugan gobolka iyadoo ay halkaas ka dhalanayso su'aal ah qarashgarayntan weyn ee military ma waxay ku soo dhamaanaysaa iyadoo aan wax soo saarin jawaabteedu waa maya Iiraan ma aamustay sidoo kale iyana waa maya hogaamiyaha sare ee kacaanka ayaa khudbad kulul ka jeediyay isaga oo muujiyay awoodda gantaalada cusub ee hypersonic ah waxa la saadaalinayaa in sanadkan 2026 Iiraan ay si rasmi ah u soo bandhigin doonto gantaalkeeda oo dhaafaya xawaare sare oo aan la joojin karin sanadihii ugu dambeeyay awoodda gantaalada Iiraan waxay ahayd mid dhab ah oo la xaqiijiyay waxaana la og yahay in maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka inkasta oo ay waaweyn yihiin ay haddana noqdeen dhibic tabardarrada istaraatiijiga ah ee Mareykanka marka ay wajahaan cadow leh gantaalo sax ah oo meel fog wax ka beegsan kara halkaas waxa ka muuqda farqi weyn dagaalkan ma aha Mareykanka iyo Iiraan oo kaliya Shiinaha iyo Ruushka ayaa si muuqata ugu lug leh iyaga oo bixinaya taageero ciidan iyo mid technology si loo bedelo miisaanka awoodda gobolka Shiinaha waxa ay dhistay difaac gudaha Iiraan waxaana si joogto ah u diraysay diyaarado waaweyn oo qaadayay sahay ciidan iyo tiknoolajiyad Ruushka ayaa u diray xeebaha Iiraan markab dagaal oo ka tirsan kuweeda badda si loo sameeyo tababarro military oo wadajir ah oo ka dhici doona badda Cumaan iyo badweynta Hindiya ujeedadu waa in la ilaaliyo saameyntooda istaraatiijiga ah ee gobolka ka hor inta uusan Mareykanka iyo Israel tallaabo rasmi ah qaadin waxa jira 4 quwadood oo waaweyn waa Mareykanka iyo Israel oo dhinac ah
iyo Iran lagu daray Shiinaha iyo Ruushka oo dhinac kala ah mid walba waxa uu leeyahay qorshe cad oo uusan ka laaban doonin bariga dhexe ayaa ku dhex jira xasarad weyn waana meel ay taalo mustaqbalka dadka iyo dhaqaalahooda su'aasha weyn ayaa ma fursad nabadeed ayaa iman doonta mise tani waa tijaabada ugu dambaysa ee dhabta ah qofna ma hubo laakiin waa la og yahay in toddobaadyada soo socda ay go'aan ka gaari doonaan mustaqbalka gobolka waqtiga aan sugno ana mogaanin inaad ku soo biirto kanaalkeennan Tifaftir Media si aysan kuu segin macluumaadka gobolka iyo lafagurkoodaba inta aan dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan